oo ummad Soomaaliyeed badan ku dhacday degan state of Minnesota in gaariyaasha la iskala dago tuuga soo baxday Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka badbaadiyay idinkana telefonkaygu ku jiray waxyaabihii ku jiray ee ay qaateen ayuu ka mid ahaa tuugadii telefonkaygu soo noqday 2 week maana shaqay kulanti wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Fagaare Entertainment waxaan idin hayaa muuqaal cusub fanaanada Hodan Cabdiraxmaan oo dil ka badbaaday balse waxa soo gaaray dhaawac xaaladeeda caafimaad iyo xogta weerarka lagu qaaday ayaan faahfaahino idinkaga hayaa balse marka hore waxaan ka codsanayaa in aad like saarto muuqaalka si uu u gaaro dad badan sidoo kale share gareeya muuqaalka hanaga iloobin inaad subscribe saarto YouTube-keena mahadsanid fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee aadka looga yaqaano geeyga Soomaaliya ayaa sheegtay in la soo weeraray xilli ay ka soo baxday shaqo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegtay in tuuga madow ay weerar ku soo qaadeen xilli ay gaarigeeda shaqada ku dhex wadatay magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka Hodan Cabdiraxmaan oo ka warbixinaysay qaabkii ay tuugadan u soo weerareen ayaa sheegtay in ay ka qaateen telefonkeeda gacanta iyo lacago badan oo ay sidatay sidoo kalena tuugadii iyada dhacay ay Soomaali kale dhac boob u geysteen sidaad muuqaalkan ka wada aragtaan waa fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo tuuga madow ah soo weerareen ragga soo weeraray fanaanada Hodan Cabdiraxmaan ayaa ku hubeysnaa bastoolada iyo toorey sida ay iyada sheegtay waxayna kala degeen gaarigeeda shaqada ayagoo ka qaatay telefonkeedii gacanta ugu dambeynna booliska magaalada Minnesota ayaa soo badbaadiyay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo Soomaali kale ugu dambeyn telefonkeedii ay dib u heshay ilaa ay haatan waxa socda baaritaan arinkan ku aadan booliska magaalada Minnesota ayaa sheegay in ay dabagal ku hayaan tuugadii isku dayday ama rabtay inay dhacaan isla markaana dhibaateeyaan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan dalka Mareykanka maalmihii la soo dhaafay waxa aad ugu badnaa dhaca ay geysanayaan tuugada madow sidoo kalena weerarka loo adeegsado tooreeda ayaa ku soo badanaya dalkaasi Soomaali badan ayaa cabsi weyn ka muujiyay dhibaatadan cusub ee ku soo korortay magaalada Minnesota oo ay Soomaalidu u badan yihiin hadda xaaladda caafimaad ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan waa mid fiican waxaana soo gaaray kaliya dhaawac fudud oo ay u geysteen tuugadaasi subaxa arooriyad meesha ka dibay dibka Allah ka qaado dadka faraxsan Ilaahay farxadooda ha u kordhiyo intii dhimata Allah una xariisto inta kadib waxaan rabaa maanta inaan idin sheego waa muddo 2 weega wax video ama soo post gareynin because waxa jirtay hawl yar oo igu dhacday oo ummad Soomaaliyeed badan ku dhacday degan state of Minnesota in gaariyaasha la iskala dago tuuga soo baxday Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka badbaadiyay idinkana telefonkaygu ku jiray waxyaabihii ku jiray ee ay qaateen ayuu ka mid ahaa tuugadii telefonkaygu soo noqday 2 week maana shaqay marka asxaabay 2 week waxa shaqeynayay walaalahay asxaabtaydii intii isla shaqeyn jirnay marka iga raali ahaada 2 week delaygi soo galay iyo sanadii la soo socodsiin waayay maalintii kulay asxaabta reer Minnesota gobnimada wanadinku ogaa wanaag wanadinku ogaa markaas insha Allah wanad salaamay dhamaantiin rag iyo dumar meesha wad iman kartaan wala samar qofka aad aysan kartaan sometimes ciyalka soo kaxaysan kartaan baakinka ku ciyaarsiin kartaan bal waqti oo haysan haddii kale carrayso drive through nagu soo mar we are ready for you insha Allah shaqo wanaagsan bad naga heleysaan inaan idin gaarsiino dadka uu always cunto ka dhamaato telefonkaygu ku jiray waxyaabihii ku jiray ee ay qaateen ayuu ka mid ahaa tuugadii telefonkaygu soo noqday 2 week maana shaqay marka asxaabay 2 week waxa shaqeynayay walaalahay asxaabtaydii intii isla shaqeyn jirnay marka iga raali ahaada 2 week delaygi soo galay iyo sanadii la soo socodsiin waayay maalintii jimcaha ahayd ee Ilaahay haduu caafimaad intuu Ilaahay caafimaad nagu soo gaarsiiyay anu bixin jirnay cuntada adreeskeenu ku bixin jirnay waa same waxba iskama bedelin waa 64 iyo maxay haydanay iyo Portland Avenue fadlan daawade haddaad muuqaalkan ka heshay like saar una share garee asxaabtaada sidoo kale hanaga iloobin inaad subscribe saarto YouTube-keena
mahadsanid.